kulanti wacan u wanaagsan qayaarta wada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u ambabaxay dalka Norway gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo soo xiray shirka guddiga joogtada oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo 200 oo guri xariga ka jaray kaas oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dajiraha dowladda Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya Jibriil Ibrahim Cabdulle oo loo magacaabay hoggaan cusub taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyay howlgallo ciidamada dowladda ay sameeyeen qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u ambabaxay dalka Norway madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay dalka Norway halkaas oo ku tagi doono booqasho shaqo oo muddo 3 maalmood ah madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay Oslo wuxuu wada hadallo laba geesood la yeelan doonaa ra'iisul wasaaraha Norway si loo xoojiyo xiriirka istiraatiijiyadeed ee labada dal sidoo kale madaxweynaha ayaa khudbad muhiim ah ka jeedin doono shirka sanadlaha ee Oslo from 2024 taa uu kaga hadli doono marxaladda Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo soo xiray kulanka guddiga joogtada gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa shir gudoomiyay kulanka bambaxa guddiga ah ee golaha shacabka oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland waxaana kulanka sidoo kale ka qayb gashay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar kulanka oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Kismaayo ayaa xubnaha guddiga joogtada ah waxay uga hadlayeen ajandayaasha kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka inta uu kulanka u socday ayaa waxaa lagu ansixiyay 2 qaybood oo kala ah ajandayaasha guud ee kalfadhiga shanaad iyo qaybta labaad oo ah in hoos loo daadego isla markaana loo wajaho sida ee ajandayaasha hortabinta u kala leeyihiin sidoo kale xubnaha guddiga joogtada ah ayaa ka hadlay in kalfadhiga shanaad laga sii ambaqaado isla markaana lagu dhammaystiro inta ka hartay ajandayaashii kalfadhigii afaraad ee xukuumadda soo gudbisay iyo kuwa cusub oo ay kalfadhiga shanaad soo gudbisay kuwaas oo hadda golaha horyaalo shirka guddiga joogtada oo si rasmi ah loo soo gabagabeeyay ayaa xubnaha guddiga joogtada ah waxay isku raaceen in kalfadhiga shanaad xoogga la saaro ajandayaasha muhiimka u ah dowladnimada Soomaaliya habdhooraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa ka warbixiyay shirkii guddiga joogtada ee golaha shacabka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xubnaha guddiga joogtada ah uga mahadceliyay maalmihii shirka oo u socday iyo dadaalkii iyo howlkarnimadii ay muujiyeen waxa uuna dhanka kale u mahadceliyay madaxda iyo shacabka dowlad goboleedka Jubbaland soo dhaweyntii ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa mudanayaal iyo marweyn si aad ogtihiinba guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan shaqo wuxuu u tagay xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland ee kamida dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka xarunteeda ku meel gaarka magaalada Kismaayo halkaas oo uga socdo shir looga hadlayay ajandaha kalfadhiga shanaad kaasoo ah shaqo mar walba markuu kalfadhi dhamaystirmo ka soo socda ugu diyaar garoobo guddoonka iyo gudiyada joogtada ee golaha shacabka shirka ayaa intuu socday waxaa looga hadlayay ajandayaasha muhiimka u ah Soomaaliya
ee ay ka shaqayn doonaan kalfadhigan shanaad ee soo socda. ajendayaashu sidaad ogtihiinba waxay leeyihiin qolof guud oo ajendayaasha suurtagalka ay tahay goluhu inuu ka shaqeeyo kalfadhigaas iyo priority iyo horutamin sida ay u kala leeyihiin. saa darteed marka inuu guddigu mar walba isagu soo kala bixiyo, xukuumadduna ay soo gudbiso 2 bilood ka hor ajendayaasha ay u aragta muhiim inay u yihiin waddanka si uga shaqeeyo baarlamanku, golaha shacabkuna ay ugu gudbiyaan aqalka sare kadibna loogu soo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda. sidaas darteed marka shaqadii wakhtiga xawliga ku socotay maalmaha kooban ahayd bambaxa ay u sameeyeen guddiga joogtada ee golaha shacabku ayaa maanta soo gabagowday, waxaana ay ka shaqeeyeen 2 qaybood. qaybta ugu horeysa waxay tahay in ajendaha kalfadhiga shanaad si guud ay u ansixiyaan guddigu, kadibna hoos loo daadego oo la gaadho ajendayaashaasi sida ay u kala horeeyaan iyo sida ay u leeyihiin horutaminta iyo sida ay xukuumaddu u soo gudbiso ay u sheegaan kolkaa inay horutamin u leedahay. saad ogtihiinna shuruucda xukuumaddu soo gudbiso waxay soo gudbisaa marka ay ka soo gudubto golaha xukuumadda. xukuumadda sharciyadii waxaa jiray kalfadhigii afraad sharciyo ka hadhay oo xukuumaddu soo gudbisay oo ay tahay hadda kalfadhigan shanaad in la dhammaystiro. kuwa ay hadda soo gudbiyeen oo golaha ka soo gudbay oo yaallaa jira iyagana. sidoo kaleeto waxaa muhiim ah oo mar walba ay tahay in iyadana ay ajendaha ku jirto wixii markaa loo arko inuu horutamin leeyahay guddiga joogtadii kulamadooda khamiislaha inay ku soo gudbiyaan. saa darteed marka waxaa loo siiqeeyey in fareemka guudna la ansixiyo ee ah kalfadhiga shanaad sida looga shaqayn doono, hoosna loogu daadego wixii hadda xukuumadda ka soo gudbay in la geliyo ajendayaasha ugu horeeya. wixii aan ka soo gudbinna markay ka soo gudbaan loo arko horutamin inay leeyihiin isla markaaba in kolkaa la soo geliyo ajendaha toddobaadlaha mar walba uu guddiga joogtadii ku leeyahay magaalada muqdisho maalinta khamiista. kaas ayaana waxyaalaha markaa muhiimadda gaarka ah leh guddigu ka doodaan, sidaas ayaana lagu soo geliyaa ajendaha toddobaadlaha ee golaha shacabka. marka mudanayaal, kulankeenni wuxuu ahaa kulan shaqo oo muddo koobana si aad iyo aad u qurux badan oo ka doodis leh oo ka baraandegid leh oo loo danaynhayo maslaxadda waddanka ayuu ku soo gabagaboobay maanta. waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa reer Jubbaland, ugu horeeya madaxweynaha Jubbaland iyo xukuumaddiisa iyo golahooda wakiilada. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo maanta xarigga ka jaray 200 oo guri oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Baydhabo. furitaankii 200 oo guri oo loo dhisay dadkii deegaanadii ka soo barakacay ay deganaayeen duruuf iyo dhibaato jirta awgooda ayna ka soo barakaciyeen shabaab iyo abaaro iyo duruufo isku darsamay dartooda ay keentay in loo suubiyo dibudejin, in loo suubiyo si ay u helaan xal waaro, guryo ayaga ay leeyihiin oo aysan qaxooti ku ahayn oo loo sabar loogeeyey in loo sameeyo. waxyaalihii higsiga annaga ahaabay ka mid tahay, aadaan ugu faraxsannahay. ma rabno dadka inay barakac magaca la yidhaaho loogu yeero. dadkan deegaankooday imaadeen, deegaankoodii bay ka soo tegeen. sida dhaqanka soomaalida ahaan jirtay amaba dhaqanka annaga ah duruufaha iyo isbeddelka cimilada yaa keenay in la guuro, duruuf laga soo guuro, meel kale loo guuro. marka meeshii laga soo guuray na waa dhulkoodii, meeshay u soo guureenna waa dhulkoodii. kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada walaalahooda Soomaaliyeed iyo kaalmada oo dawladdaba way u baahan yihiin, waa lagu kaalmaynaya. laakiin magacaan barakaca aan rabnaa in laga daayo, barakacaan la dhihi. mustaqbalka deegaankoodii joogaan dadkan magaalooyinka degan
kulli original waxaa laga imaaday baadiyo ninba sibuu ku yimid daruufaa keentay nin xoololey buu ahaa xoolihii baa ka dhammaaday abaaraa keentay saasuu ku imaaday nin maxay ahayday beedeey danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya Jibriil Ibrahim Cabdulle oo loo magacaabay xil cusub danjiraha Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya isla markaana ah wakiilka joogtada ah ee UNIB iyo UN Habitat Jibriil Ibrahim Cabdulle ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha wakiilada joogtada ah ee dalalka Africa Group ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi danjira Jibriil Ibrahim Cabdulle iyo howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa hogaamin doona qorshahooleedka wadamada ku boobay African Group iyadoo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ay hoggaan u noqon doonto kooxda Afrika danjira Jibriil Ibrahim Cabdulle ayaa uga mahadceliyay dalalka Africa Group kalsoonida ay u muujiyeen dalka Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka safaaradda Soomaaliya isagoo ballan qaaday inuu si buuxda ula shaqeyn doono wakiilada dalalka Afrika taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyay howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen qaybo kamid ah gobolada dalka afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidanka booliska ay ku soo qabteen burcad shacab dhaawac iyo dhac ugu geystay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho howlgalladan ay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ay ka sameeyeen degmooyinka Dharkeelle iyo Garas Valley ee magaalada Muqdisho waxayna gacanta ay ku soo dhigeen kooxo dhac ka geysanayay sida uu sheegay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lahaa shabakad dadka dhacda ayaa waxay muwaadiniin Soomaaliyeed ku dhaceen gudaha degmada Dharkeelle waxay qaateen mooto ayagii oo moobeeladii iyo agabka ay dadka ka dhaceen wata ayaa waxay galeen degmada Garas Valley ciidanka booliska degmada Garas Valley ayaa daba galay degmada Garas Valley waxay ka dhaceen gaariga idin muuqda oo yarka ee xamaaliga gaarigi markay dhaceen waxay si toos ah ula galeen deegaanka ceelasha biyaha oo ay rabeen inay ku dhuumaaleystaan gaarigi markii ay taargadii booliska baafiyeen lagu daba taagnaa ay dareemeen inaysan dhaqaaqi karin waa ay ka tageen gaarigi haddana waxay gaari labaad ka soo dhaceen ceelasha biyaha waa gaarigaas labaad oo idin muuqda waxay ka soo dhaceen ceelasha biyaha waxay soo aadeen degmada Dayniile waxay halka ayadana ku soo aruursadeen moobeelo gaaraya ilaa iyo 6 moobayl oo ay dadka ka soo dhaceen sidoo kale waxay ka dhaceen maadaama ay tuuto wateen muwaadin Soomaaliyeed oo sifo sharci ah ku watay bistoolad ay bistooladii ka dhaceen bistooladii ay ka dhaceen ay waxay ku dhaawaceen muwaadin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood labadii ruux iyo laba kale oo kalkaaliyaal u ahaa afartooduba gacanta lagu soo dhigay waxayna ku xiran yihiin saldhiga oo hadda aad u jeedaan maxaabiistaas ay ka mid yihiin saldhiga ku xiran sidoo kale ciidankaas markaan weydiinay taliskooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay noo cadeeyeen in muddo 3 bilood ah baadigoobkooda lagu jiray baafinna saaran tahay taa waxay xaqiijinaysaa in ciidanka qaarkii ay iska sheeganayaan magaca ciidanka ee aysan ahayn kuwa u qoran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah sifo sharci darro waxay uga soo baxeen difaaciyadii xarumihii ay ku qornaayeen magaaladan waxay u soo aadeen dhac bareera taasna waxaa talaabo ka qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ruqseeyay dhammaan dambiilayaashii dambiga geystay sidoo kale waxaa isla degmadan Dharkeelle gudaheeda waaxda shanaad dhac ku geystay 2 ruux oo ka tirsanaa jiray xoogga dalka Soomaaliyeed horeyna looga ruqseeyay waxayna dhac u geysteen 4 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah waxayna ka dhaceen moobeeladii waa moobeelada idin muuqda halkan yaala waxaana gacanta lagu soo dhigay habeen hore isla ayagiina waxay ku jiraan xabsiga degmada ama saldhiga waxaana loo gudbi doonaa maxkamadda awoodda u leh sidoo kale dhacdadaas markii ay dhacday ciidanku ay soo qabteen maxkamadda horgeynta intaan la geeyay guud ahaan warkii telefishinka Hilaac waa dhagayta